fadhiya xildhibaanada qaranka sharafta leh oo hadda halka fadhiyo yaan anna ku fadhiyaa 17 September baan ku fadhiyaa deegaan doorashada labaad ee Garbaharey waxa hadduu sharci jiro waa ka asaga waa kaas taasaan ku soconaa annaga wixii uu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ku fadhiyo 17 September wada ogolka Soomaaliya deegaan doorashada labaad Garbaharey taasaan ku fadhiyaa anigu laakiin dood baa ka taagnaa Garbaharey Soomaaliya wax dood oo ognahay ma laana waka ceel qaalow niman lagu soo doortay in heestaan lagu yiri dad ceel qaalow lagu soo doortay in heestaan lagu yiri wax kala ma jiraan maxadri waa kaarka aqoonsiga haysta وكا كاركي قونسيga xildhibaanimada 17 September baa ku imaanay aadan madoobo wuxuu ku joognaa mursal wuxuu ku joognaa dhaban cad wuxuu ku joognaa ciidamada Kenya xildhibaanada ku soo darsadeen baarlamaanka Soomaaliya oo saraakiil Kenyan ah yaa la rabaa matalaadnadii iyo kuraasanadii la siiyay mana aqbalayno ummadana shacabka anaga faraha badan shacabka soo doortay ee tirada badan ee gobolka Gaza waxaan u sheegaynaa matalaadiini in musuqmaasuq lagu wado inaa ka dagaalantaan meel kasta oo joogtaan taas ayadana waan sheegaynaa si bareen oo cad oo deegaan doorashada labaad oo Garbaharey baan ku imaanay cidna war kama yeelayno sabab gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku fadhinaa saraakiil Kenyan ee matalaadnada lama siin karo magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waxaan ku imaaday balmarsan yihiin ma aragtay حاجة أقوى كذا شيء aqoonsiyo citaysma ayaga la weydiina cid aqoonsiyada shito qof walba aqoonsi ayagana waa soo sameeyay kuwan aqoonsi wata kuwan aqoonsi bay wataan ma fahamtay 32 waa la soo dhaariyay mid walba waa la dhaariyay mid walba waa la siiyay aqoonsi uu haysta hala soo wada galo baarlamaanka hala balaariyo gudoonka dhinac buu u batay gudoonka hadda la gudoonka wuxuu noqday gudoon dhinac u batay marka biliis madaxa ay xanuunay hadal badan kama gaaro meesha maanta buuq weyn baa ka jiro wax ka kala soconaayeen ma jiraan salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sahuur xaaji dad waxaa yimid aan legal ahayn aan kaarar haysanin oo si sharci aan ku socon annagu sharci baan ku soconnaa Jubbaland baan laga soo doortay guddiga seed and fit baan soo doortay document legal ahaan wadanaa waxa illegal ah annaga lagu baalkiyeen karo marka meesha aan ku jirno baarlamaanka Faristii aan imaano waa maanta waxaan leenahay dadka soo galay waa very danger documentiga ay wataan waa fake marka annaga naftisadannadu in halis la geliyo maaha waxaan fariin u fareynaa caalamka gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe caalamka cid kastoo qusayso gudoomiye ku-xigeenada cid kastoo qusayso waxaan u direynaa baaq iyo caalamkaba in ay si degdeg arrintan wax ooga qabtaan adduunka dastuur iyo sharci legal baa lagu kala socdaa legal baan ku soconnaa anaga dad aan legal ahayn baa nala joogo we are not accept garaynayno ya dadka Soomaha wixii siiyay ayaga og ma garatay annaguna waa ogna waan dareemeynaa sharciga waa inuu qabtaa adduunka sharciga hadda wax walba ka sareeyo everything ka sareeya booliska nabad sugidda madaxweynaha sharciga ka sareeyo marka sharciga halkan sharci darrada ay ku soo galeen waa in wax laga qabto baaq baan direynaa caalamka adduunka baan u direynaa beesha lixaad hadday maqlaan message-kayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iraada Jubbaland aan ka soo galaa Kismaayo xildhibaanada Kismaayo aan ahay laga soo doortay waqmi aniga Kismaayo aan ahay sida aniga la igu soo doortaa lagu soo doortay waxa aniga sharciga dhigay iyadana aan sharci ka dhigin ani ma garanayo guddiga fiid iyo sida shahaadada wada siiyay na dhaariyay kaarkii baarlamaankana laga siiyay xogeynta baarlamaanka iyo waxaana siiyay howlwadeenada waxa iyagana ceel waaqna ka dhigaya inayna ahayn parliamentarian anigana iga dhigaya ma garanayo sharcigaas sharciga dad ku fadhiyaan waxa soo galay dad fawda oo waliba lagu dagaalamay oo security la dagaalamay oo la soo galiyay oo aan xaq u lahayn kaararka ay wataan waa fake ma baarlamaanka marka dadka laba kaar wada siiyay
no baarlamanku laba kaar ma wada siin kaarar bannaanka laga soo sameeyaa lagu soo geliyo feeg ah waa dad fawdo wada waddankan 5 sano oo la soo dhaafay dib uu ku jiray waxaan u malaynaynaa habeen hore markaan dooranay gudoomiyayaashii inaan ka saarnay dhibkii wax yaraa dhibkii ka haray haddii ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeed u dhaaranay waxaan u sheegaynaa in dhibkii in yaray ka hadhay inta maanta qaylqaylinaysa ee faadada wada ee aan rabin dawladnimada dad aan doorashada la rabin oo dawladnimo laga rabin anagu xildhibaan u noqonay nasiib aan u yeelanay laakiin ilaahay idanka waan badbaadinaynaa xildhibaanada ceel waaqna waa xildhibaano aniga ilamada si aniga la doortay aan anigu codeeyay xaq u leeyahay baarlamanka imaadaan ka codeeyaan shirkana ka qayb galaan waxaan codsanaynaa gudoonka baarlamanka iyo howlwadeenada baarlamanka iyo sakuuradka dadka sharci la'aanta ku soo galay ee aan kaararka haysanin ee soo galay seefatigeena baan u baqaynaa haddii baarlamanka qof aan sharci ahayn iska soo dhex fariisanayo annaga seefatigeena aan u baqaynaa in dadka bannaanka loo saaraan codsanaynaa halku wuxuu yahay dadkaas oo bannaanka loo saaro because waa dad aan sharci ahayn kaarar beena lagu keenay fawda meeshan ka socota dawladnimo lama rabo 5 sano ummadda Soomaaliyeed la dhibaayay annaguna dawladnimo iyo inaan nidaamkii joogay iyo dhibkii ka saarnaa u dhaaranay waxaan codsanayaa maanta oo xalka yahay dadkaas kaar la'aanta kaarka wata muxuu ahaa Cabdal Shideeye laga soo sameeyay in laga saaro halka way baarlamanka saas ku furmi kara si kale kuma furmi karo golaha shacabka ah abaarihii goor daqiiqado uu hadda ka horeysay waxa soo galay niman fawda qaswadayaal ah oo maaragtay laga soo abaabulay villa Soomaaliya madaxweynaha uu soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiim kamid ah nabad sugidda maaragtay qaranka ay soo abaabuleen ayaa soo galay si fawda ku soo galay hoolka golaha shacabka oo maaragtay ujeedadoodu ay tahay inay maaragtay qasaan kulanka golaha shacabka maanta iyagoo maaragtay ugu danle in maaragtay waqti dheerayn ay u sameeyaan madaxweynaha dalka fawdada ku wada ee muddaxileedkiisa u dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay oo dhan waxay qaadeen tallaabooyin isxigxiga oo dhammaantood baalmarsan dastuurka dalka u yaal waad ogtihiin xilligii laga soo bilaabo maaragtay 2019 aakhirkeedii waxaa deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland ay ka wadeen maaragtay qas aad u weyn oo ay maaragtay ku burburiyeen haydihii maaragtay maamulka ee dawladda gaar ahaan gobolka Gedo oo ay hoos geeyeen maaragtay ciidamada nabad sugidda ee ka amar qaata Faad Yaasiin iyo Kulanajis oo hadda kamid ah golaha shacabka runtii aad baan uga xunnahay wixii maaragtay ka dhacay deegaanadaas oo dhan muddooyinkii aan soo dhaafnay oo ay maaragtay sameynayeen madaxweynaha muddaxileedkiisa u dhamaaday iyo taliska maaragtay ciidanka nabad sugidda qaybo kamid ah waad ogtihiin inta maaragtay waxa xadgudub oo lagu kacay deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland waa qaybihii ugu dambeeyay oo rafashada ahayd waa mid hadda maanta ka socota golaha shacabka xildhibaanada 16 oo sida saxda lagu soo doortay oo guddiga fiid iyo guddiga siid maaragtay ay soo doorteen iyo dadkoodii iyo deegaanadoodii intaba baa waxa laga maaragtay dhax abuurayaa qas ah in maaragtay lagu challenge gareeyo dad fawda oo soo abaabuleen ciidanka nabad sugidda iyo madaxweynaha waqti xileedkiisa u dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasna wax soconay ma ahan wax sharci ahna ma ahan baarlamaankana fawda ma ahan nidaam buu leeyahay dastuur buu dalka leeyahay dalka ma burburin hay'adihiisii dawladdu way dhisan yihiin waana la iska qabanaya gacan adag baa lagu qabanaya insha Allah aad baa u mahadsantiin alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaa noo soo dhammaaday gudoonkii doorashada halkan maanta waxaan u nimid inay gudoonku xilalkooda la wareegaan aan ogaano ajandayaasha iyo howlaha jirayna aan ogaano baan u nimid halkan waxaa ka jirta fawdo aad iyo aad halkan waxaa ka jira maanta fawdo aad u fara badan xildhibaano lagu soo doortay ceel qalow oo kiyaati dooratay oo aan deegaan doorashadooda ahayn baa saa kale soo gashay xildhibaanadii kale oo lagu soo doortay Galbehaare oo deegaan doorashada Jubbaland lagu soo doortay oo ay soo doorteen dadkoodii 101 ergada ahayd ay soo doorteen oo anagu waxaan ku fadhino saaka ku fadhiyana waa yimaadeen labadii xildhibaanba waa joogaan in la wada baxsho iyo inay wada joogaan waxba kama dhaxeeyaan maanta anagu waxaan u joognaa inay 32 xildhibaanba wada joogto oo la ansixiyo iyo in 32 xildhibaanba la wada bixiyo ma ahan horta inaysan meeshaan saaka waxba ka soconayn baan idin sheegaynaa waxay ku fadhiyaan nimanka Galbehaare laga soo doontay sida anagana ku soo doortay Galbehaare nimanka laga soo doortay sida anagana ku soo doortay ku jiraan 17 September heshiiskii ahaa oo ahayd deegaan kaste maamul goboleed kasta wuxuu lahaa laba deegaan doorasho intii kale waa la soo maray habraacyadooda waa la soo maray waxay ahayd waa la soo maray deegaan doorashada Galbehaare baa madaxa cagta looga istaagay mana soconayso nimanka waa la soo doortay 101 qof oo ergadoodii ah oo dadkoodii ah oo qabiilkoodii ah soo doortay sida anaga qabiilkaygu noo soo doortaa loo soo doortay oo ay ku fadhiyaan maanta meeshana ku joogaan
waad aragteen qof walbana uu arka niman afka u xiran yahay lagu jeexjeexan yihiin sarwaalo laga jeexjeexan qaba beeraley ah waxa la waxay yihiin aan aqoon bala soo doortay marka annaga maanta waxaan u taaganahay oo aan rabnaa 32 xildhibaan oo qaarna ceel waaq laga keenay qaarna garbaare laga keenay inay wada baxaan wax la yaqaan inay wada joogaan la ansixiyay wax la yaqaan wax kale oo meesha ka jiraya ma jiraan qofka caytama iyo qofka iswaala iyo qofka magac beena meesha dhigaana asaga u taala meesha qof dhici kara ma jiro qof walba wixiisa asaga iska leh Soomaaliya waxa lagu joogaa wal qaybsi waxa lagu joogaa Soomaaliya maxaan ku dhahay ii deegaan qof kasta deegaankiisa doorashadiisa iyo dadkiisa asaga iska leh Soomaaliya saasa lagu joogo qofna qof ma baadi karo dadna in magacooda la dhigo iyo lambaradooda dadna la yiraahdo ma gali kartaan albaabka saaka waxaan u nimid markaan nimid ayagoo albaabada dhawna la leeyahay ma gali kartaan magacyo kale iyo dad kale meesha ku qoran yihiin ma fahanto aniga labadaba waa isku kaymid waa dadkaygii laakiin muhiimaddu waxay tahay in sida saxda la raaco kuwaana xildhibaanadayda kuwaana xildhibaanada laakiin deegaan doorashada sida ah in la raaco ba sax alxamdulillaah rabbil caalamiin